بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada shabakada haqabeel.com ee laga barto cilmiga multimedia isla markaasina idinku soo gudbino barnaamijyo waxtar u leh bulshada. Barnaamijkeenan maanta oo ah barnaamijka sportska waxaanu ku soo qaadan doonaa booqashaan dhawaan ku tagay mid kamid ah jimamka ugu waaweyn ee magaalada Hargeysa oo lagu magacaabo Nanays Gym. halkaasi oo kula kulmay maamulka gymkaasi isla markaasina kula kulmay dhalinyartii iyo odayaashii ku ciyaarayay gymkaasi oo iga warbixiyay faa'iidada jimicsiga iyo macluumaad kale oo la mid ah. daawasho wanaagsan. بسم الله الرحمن الرحيم. عبسلان عباس قولن. عبسلان waxaan ku weydiin lahaa goortii aad gymka bilowday iyo waxaad ka faa'iiday. waxaan bilaabay horta 3 bilood ka hor. waxaan ka faa'iideyno waxa weeyaan waa caafimaad jirka. magacaygu waa Faysal Cabdirasaaq, aniga ku magac dheer Faysal Baashe. gymta waxaan bilaabay ciyaaritaankeygii 2016 bishiisii 6aad. anigoo waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan. waxaan ka faa'iiday imika caafimaad badan, hurdo badan oo mid labaad ee markii hore aniga overweight baan ahaa garaas. then overweight markaan ahaa waxaan go'aansaday inaan jirkayga fit ka dhigo. muriid maxamed xasan. wallaahi horta runta gymka waxaan bilaabay 2016 bishii koowaad. run ahaantii horta waxaan ka faa'iiday markii aan gymta bilaabay laga yaabaa inuu ahaa qof xoog dhooban. kadib markii aan waday waqti sanadkaas run ahaantii jir ahaan iyo qurxaan iyo shiibahanba isbedel weyn baan wallahi ku dareemay. magacay xadiis balana. xadiis ayo xadiis maxamed xadiis niyo todoba maalintii labaad inteeran ku ciyaarayo marka shalay baan mid maanta ay laba laakiin haddaan ka sheekeeyo ama ka yara faalloodo waxyaabaha faa'iideynaya waxaa ka mid ah dadkeena miyiga joogay markay xoolaha hilibkooda cunaan way la lugin jireen, laakiin dadka magaalada jooga way la fadhiistaan. marka dadkeena magaalada jooga haddii hilib kasta cunaan waxa ma yeeri jireen caafimaadkooda, laakiin dadka maanta magaalada jooga markii intuu hilib cuna xafiis fadhiisto qofkii dhiig kar buu qaadayaa, macaan buu qaadayaa. marka baalkani exercise-kani kaas ku dawan yahay. laakiinse waxaan gymkana aan ka aaminsanahay inuu yahay meel caafimaadka qofku ku ilaashan karayo, maadaama ay xanuuno badan jiraan, cuntadeennuna aanay had iyo jeer quality control lahayn. si uunu qofku markaasun dhakhtarka marka la dhigo aanu xanuunkiisa u dareemin, inuu qofku obesity-ga iska ilaaliyo, culayskii faraha badnaa, si uu qofku had iyo jeer noqdo qof caafimaad qaba. magacayga Cawl Cali Suule. wallaahi waxaan bilaabay horta bishii 3aad ee sanadkan. bishii 2aad ee sanadkan ayaan dhakhtar u dhoofay India. cholesterol waxbaan yeeshay, miisaankayga yara weynaaday, dadna dhakhtar baaba ay qorayba. okay, waa tahay hadda waxaan la joogaa mid kamid ah maamulka gymta Nanays Gym. waxaan jeclahay inaan weydiiyo dhowr su'aalood oo ay kamid tahay ugu horeyn waxaan weydiinayaa Axmed, goorma la aasaasay gymta Nanays? bismillaahir rahmaanir rahiim. gymka Nanays waxa la aasaasay sanadii 2014. ilmihiro waxa bidhmid media lagu soo qoray aabihii kuugu malaha wuxuu aqleysteen hooyadii uur leh aabban uu calool weyn taas ka leeyahay.
dabeetana inankii yaraa wuxuu afka Soomaaliga bartay iyadoo markay hooyo u murayso hooyo amusha caloosh baa yaraatay dibadna wuxuu arkay aabbo weli halkan uu soo ka taagan oo taangiga buux maalintii ku dhaabay hooyo way dhashay abu goorma dhalay doontaa waxa kale ku weydiin lahaa toddobaadkii imsa jeer baad ciyaartaa toddobaadkii 5 cisho maantiina waxaan ciyaaraa 2 mar والله waxaan soo galay 2016 bishii 3 meelaha wax badan oo la ka faa'iiday waxa kamid ah isbedel badan oo isku arkay waxyaabahaas kamid ah isbedel badan oo isku arkay sidoo hore ahayn jirkaygu isbedelay caafimaad ahaan muddo 5 bilood aan imika wada jimta waxaan ka faa'iiday wallahi jir aad wanaagsan jirka ku dhisbalaya caafimaad badan ayaan ka faa'iiday xoog baruur badan baan lahaan jiray baruurtayga dhacday imika alxamdulillah toddobaadkii jimcuhu kaliya meesha fasaxtay jimcuhu ma ka maqana marka waxay ka dhigan tahay maalinta jimcuhu baan dastaa inta kala wada ciyaarta maalinta jimcuhu ma ka maqana inaad ciyaarto jimta inaan ciyaaro jimka miisaanka rido hadduu miisaanku dhici waayna fitness inaan wado uun horta garanaysa ayuu dhakhtarkaas igula taliyay waaba medical prescription baabay noqotayba waa wasfa dibiya waxaa jira dee shabaab u yimaada jirkooda inay dhisaan waxaa jira shabaab u yimaada inay waqtiga isku dhaafiyaan waxaa yimaada qaar inay miisaanka dhimaan waxaa jira qaar dee diabetes lahoo macaan lahoo lagu yidhi iska dhidiyo oo dhakhtarrada u qoreen anuu diabetes leeyihiin daqadna ma leeyahay ma garanaysaa waxaa jirta dhalinyar badan oo xiisaysayna jiinta ku soo biiraan isla markaasina aanay u suurtagelin dhalinyarta maxaad kula talinaysaa dhalinyarta waxaan kula talinayaa inay jiimtu tahay caafimaad dheeraada taasoo jirkaaga ka dhigaysa fit amba dee saad doonaysa aad u bilgalinaysa waxa kale ku weydiin lahaa ujeedada u soo gashay jiimta mararka badan inta badan sayna ogsoonahay jiimta marka la ciyaarayo laba ujeedo loo soo galaa labadaasi ujeedo oo ah in jirka lagu dhiso iyo in la isku caateeyo labada ujeedo keebada soo gashay labadaba waan soo galay in jirkana aan ku dhiso caafimaad ahaan waan soo galay inaan mar walba dhidid badan iga yimaado qolada doonayna jirkooga dhisaan oo ay hilib yeeshaan ama miisaankooda kordhiyaan qolada maxaad kula talinaad iyaga niyow waxaan kula talin lahaa laba arrimood bay inta badan yaqaanaan dadka Afrikaanka inuu cunto badan cuno fadhina uu sameeyo marka labadaas waa contradictions ka hor imanayaan cunto badan cunto askana fadhido ugu yaraan maalinta xitaa hadaan jiimka ciyaaran home exercise la xidhaa jira oo gurigaaga adigoo jooga samayn karaysid ugu yaraan bushka haddaad 20 minute subaxii intaana shaqada ku cinsamayso ama stomach aad maxaa ku dhaqaaqo loo sameeyo dee aan imanka ku tusi karo way qofka uu dhibaranaysa isagoon jiimka ba imanin inuu jirkiisa dhista caafimaadkana hagaago way dhiid badan baa qofka imanaya dhiigkarkii macaankii iyo shayinka sheeginayo xarsudan daba kaga filan karaysa qaab kala duwan ma ciyaaraan anigu markaan eega qaabkaan u ciyaaro oo ah fitness ama mid caafimaad waxaan kaliya ciyaaraa 4 cisho 6 cisho jiimka furayay 4 cisho aan aaminsanay inay igu filayeen taasoo aan wadan lahayn jirkayga dhiso laakiin si ay muhiimadeyda koowaad ama targetkayga koowaad uu yahay inaan miisaanka iska rido aniga oo ka yimiday 9 iyo 4 haddana aan ahay 72 kiilo dee jimcaha iyo holodheeyadu maana nimanta kala waan imaada almost marka waxay ka dhigan tahay maalinta jimcuun baan ka nastaa maalinta jimcuun baan ka nastaa waxaan u soo galay jirkayga dhiso wallahi waxaan kula talin lahaa caafimaad badan inaad ka faa'iideeyaan jiibta waayo jirku qurux badan inuu jirku dhismo ay ka faa'iideeyaan waxa kale ka faa'iideeyaan stressku inuu ka baaba'o dhalinyartan stresska iyo buuqa maskaxda kaga fureeyay uu ka baaba'aya maskaxdooda waayo tahriibkan way ka nasanayaan markay birta ciyaaraan sportiga soo gala baan leeyahay halka haddaan su'aal kaa weydiiyo sidii stresska u baabiinaysaa jiimtu waayo anigu waxaan dareemaa marka aan maalintan ciyaaro jiimta waxaan dareemaa caafimaad badan stress baan dareemaa inuu iga baaba'ay inaan nafis ahay bilaa buuq iyo bilaa waxba maalintaan ciyaarna waxaan dareemaa inuu madaxu xanuunayo oo stress badan xanaaq badan iyo carab badan baa leeyahay maalintaan
dad badanoo waxaa jira sidaadoo kale jecel inay baruurta iska ridaan balse aan ku soo dhiiran inay imaadaan jiimta dadkaas kale maxaad kula talinaysaa wallaahi waxaan kula talin lahaa horta marka kuugu horraysa way kugu yara adkaanaysaa moogtay laakiin markaad barato waad u soo khamradoonaysaa waayo markuu dhiiggu kaa baxo ayaad more oxygen qaadanaysa marka dhiiggu kaa baxo magaraysa ayaad dhiidido intii makhaayadaha ay fadhiisan lahaayeen ama kubad daawan lahaayeen يعني وانا انترتينمنت كونك سنه ما جiro kaalaga ku soo beerabaan loo ku soo dhiirado horta taray ka qaada waxa kale ku weydiin lahaa Axmedow qalabka meesha yaala noocyada ugu badan wallahi noocyada teamku wuxuu qaybsamaa waa shoulder waa chest waa iyo dhabar iyo lugaha markaas lama soo koobi karo qalabku fure badan yahay waxa kale ku weydiin lahaa qofku markuu jiimta ku cusub yahay wuxuu u baahan yahay macallin tababara isla markaasina tuso qaabka loo ciyaarayo ma jiraan macallimiin jiimtiina joogo oo qofkii ku cusub gacan qabta isla markaasina tuso qaabka uu ciyaari lahaa way joogaan laba macallin tirtira bay joogaa labada gelinba waa u heegan adu inta badan majority dadku waxay u badan yihiin dhalinyartu qaar fahansan birta loo ciyaaro intaan fahansanin anaga fahansina waa tahay ugu dambeyntii waxaan ku weydiin lahaa Axmedow saacadaad shaqaysaan saacadaha shaqayna waxa weeyaan salaad subax ilaa 8 ka dambana waxa weeyaan 5 ilaa 10 habeenimo inta u dhaxaysana wax iskale dumarku imsaday soo galaan imsaday ka baxaan waxay soo galaan 8 aroortii waxay ka baxaan 4 barka aad iyo aad baad mahadsantahay Axmed waa tahay daawadayaal waxaan filayaa barnaamijkaasi aadka u xiisaha badnaa inuu kaga hadlaynay faa'iidada jimicsiga inaad ka faa'iideysateen intaynu barnaamij lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh